بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مقعي هاي إنجنير حسين محمد عبد الرحمن. أنا تيجر حسين محمد waxaan soo gelin doonaa insha Allah tenniska afraad oo ahaa present perfect continuous tennis. waxaan halkan ugu hambaliyeynayaa dhammaan macallimiinta Soomaaliyeed maadaama ay tahay maanta maalintii macallimiinta. dhammaan macallimiinta Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay hambalyo oo aan anigu ka mid ahay. aan sii gudgalno casharkeena afraad wuxuu noqon doonaa present perfect continuous tense. present perfect continuous tense maxaa la dhahaa ayaan baran doonaa insha Allah hadduu ay baraali ka noqdo. okay. present perfect continuous tense. present perfect continuous tense present perfect continuous tense. present perfect continuous tense maxaa la yiraahdaa? what is present perfect continuous tense? what is the rule present perfect continuous tense? present continuous tense maxaa la lahaa? sharcigiisu waa maxay? auxiliary verbskiisu waa maxay? auxiliary verbkiisu waxaa waaye half iyo has waaye. wixii plural half ay qaadanayaan, wixii singular ahna has ay qaadanayaan. okay. present perfect continuous tense maxaa la lahaa? present perfect continuous tense is used waxaa loo isticmaalaa to express an action that began the past and is still going on. waxaa loo isticmaalaa ficil bilowday xilli hore welina socda. ficil bilowday xilli hore welina socda ayaa loo isticmaalaa. ruleka ama sharcigiisu waa subject plus have slash has plus been plus verb plus ing plus object. tusaale, ruleka waxaa waaye subject waa ficil sameeyihii, haddii uu plural yahay have baad leedahay, haddii uu singular yahayna has baad siinaysaa. been labadaba wada qaadanayaan. verb ficilkiya plus ing halna xusuusnow, verb past participle ing ma qaadan karo. taas xasuusno. verbka goorma ing lagu dari karaa? waa marka uu verbka yahay present verb. present form markuu yahay waxaad ku dari kartaa ing, balse verb oo past participle form haddii aad ku dartid ing waxaa waaye meesha waa lagu ceebooya. okay. tusaalayaasha aan gudubno examples ama example. tusaalaha wuxuu sheegayaa koowaad, I have been playing football for 2 hours. waxaan kubad ciyaarayay 2 saacadood. I have been playing football, kubad ayaan ciyaarayay for 2 hours, 2 saac ayaan kubad ciyaarayay. He has been eating banana. wuxuu cunayay moos for 10 minutes. 10 daqiiqo ayuu wuxuu cunayay moos. She has been cooking lunch. ayada qaday karinaysay. They have been reading lessons. casharadooda ay akhrisanayeen. We have been drinking water. anaga biyo ayaan cabaynay. You have been speaking to me. anigaad ila hadlaysay since yesterday. tani shalay aniga ila hadlaysay. It has been eating meat. ayadu hilib ay cunaysay. it waxaan horey usoo sheegay in loo isticmaali karo keliya xayawaanka iyo waxyaabaha aan caqliga lahayn oo bini aadanka aan ahayn. bini aadan haddii aad it u isticmaashid waxaa waaye ingiriis mataqaanid oo waa lagu ceebooyaa meesha. it marka ha u isticmaalin bini aadan, human being ha u isticmaalin, keliya u isticmaal waxyaabaha aan caqliga lahayn, shayaasha waxyaabahaas u isticmaal. aanu gudubno affirmativekiis muxuu yahay? affirmative waa hadal caadi ah. He has been eating banana. isaga moos ayuu cunayay. moos ayuu cunayay. She has been cooking lunch. She has been cooking lunch. qaday karinaysay. They have been reading lessons. ayaga casharadooda ay akhrisanayeen. We have been drinking water. biyaan cabaynay. You have been speaking to me. anigaad ila hadlaysay. okay. for 2 hours adarta waa ku darsan kartaa, haddii kale waa ka dhaafi kartaa. It has been eating meat. hilib ayay cunaysay. I have been playing football. kubad ayaan ciyaarayay. waa la fahmo. negative diidmada say noqon doontaa. horeyn waxaa idinkugu soo sheegay haddii aan dhaho haven't iyo haddii aan dhaho have not inay same yihiin.
short form iyo long form la inay kala yihiin hore usoo sheegay. Okay, negative-ka aan gudubno. Negative-ka wuxuuna leeyahay sida tan: I haven't been playing football. Kubad ma aanan ciyaarin. I have not been playing football. Kubad ma ciyaaraynin. I have not been eating banana. Moos ma cunaynin. He has not been eating banana. Isaga moos ma uusan cunaynin. He has not been eating banana. Isaga moos ma cunaynin. She has, marka waxaa qurxoon in la dhaho she hasn't been cooking lunch. Ayada qado ma karinaynin. They haven't been reading lessons. Casharadooda ma aysan akhrisanaynin. We haven't been drinking water. Anaga biyo ma cabaynin. You haven't been speaking to me. Adiga aniga ilama aadan hadlaynin. Ama idinka aniga ma ila hadlaynin. It hasn't been eating meat. Ayada hilib ma aysan cunaynin. Aan u gudubno qaybaha kale. Question and negative. And the negative with question. Okay, aan ku bilowno interrogative with question. Interrogative iyo question waxaan hore usoo sheegay inay same yihiin. Interrogative iyo question waa same. Okay. Have I been playing football? Ma aniga kubad ciyaarayay. Has he been eating banana? Ma isaga moos cunayay. Has she been cooking lunch? Ma ayada qada karinaysay. Have they been reading lessons? Ma ayaga casharadooda akhrisanayay. Have we been drinking water? Ma anaga biyo cabaynay. Have you been speaking to me? Ma idinka ani ila hadlayay mise ma adiga aniga ila hadlayay. Waa su'aal adiga la weydiiyay. Has it been eating meat? Ayada ma ayada hilib cunaysay. Mukulaasha tusaale ahaan mukulaasha ma ayada hilib cunaysay oo kale. Ana gudubno negative with interrogative oo ah diidmo oo la jirto su'aal. Sorry, meeshaan xogaa waa iga qaldantay. Meeshaan waxay u baahan tahay in la idgareeyo. Raalli ahaada. meeshaan waxaa laga rabaa been ayaa ka maqan. raalli ahaada meeshaan qaladaa dhacay. have not I've been have not I meeshaasna maxaa laga rabay been. meeshaan verb-kan waxaan hore soo sheegnay verb past participle form inuusan ing qaadan karin. saan ayaa laga rabaa. haven't I been playing football. haven't I been playing football. tan waxay noqonaysaa has not he been eating banana. halkan waxay noqonaysaa been cooking lunch. haven't they been reading haven't they reading lessons. ma ayaga casharada akhrisanay. haven't we been drinking water.
haven't you been spoken man waa speaking to me it's been eating haven't it eaten been okay marka waxaan dhahaynaa negative ka hadda waa ansaxay raalli ahaada waqtina way igu qaadatay negative with question or negative with interrogative waa isku mid haven't I been playing football aniga kubad ma ciyaarinin miyaa haven't he been eating banana isaga moos ma cunaynin miyaa has not ama hasn't she been cooking lunch ayada qada ma karinaynin miyaa haven't they been reading lessons ayaga casharadooda ma akhrisanaynin miyaa haven't we been drinking water anaga biyo ma cabaynin miyaa haven't you been speaking to me idinka aniga ma ila hadlaynin miyaa ama adiga aniga ma ila hadlaynin miyaa hasn't ama has not it been eating meat ayada hilib ma cunaynin miyaa halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa mar kale waxaan halkan ugu hambaliyeynayaa dhammaan macallimiinta Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan kaloo idinka raali gelinayaa kastiyarta oo caqabadii yar na qabsatay ay ahayd in aan isku qaladnay bas yani qaybtan oo negative with questionska ama negative with interrogative ayaa waxaan ka dhigay present perfect tense laakiin waxaan ka rabay present perfect continuous tense ayaan ka rabay qaladkaas yar dhacayn insha Allah ka raali ahaada saaxiibayaal haddii aad casharadan wax fiican aad ka fahanteen ama aad wax ka fahanteen ama aad wax ka faa'iideenba wax badan ayaan ka faa'iidnay soo dhahaa subscribe like and share waa ii dhiirigelin adigana wax kuma tarto anigana waa ii dhiirigelin oo kaliya waa ku mahadsan tahay sababta aan usoo geliyo casharadan aan kuu sheego waa in ay ka faa'iideystaan ummadda Soomaaliyeed ama asxaabtayda dadka igu xiran ee YouTube-kayga ku xiran in ay ka faa'iideystaan waa mahadsantihiin like iyo share iyo saara haddii aad wax ka fahanteen wax badan ayaan kaa fahmay soo dheh waa ii dhiirigelin waa ku mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh happy teachers day